يا داود يا شل ولاد ما شاء الله magacayga waa Nasra Maxamed Xasan waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan ku dhashay dalkayga hooyo Soomaaliya gaar ahaan Gedo waxaana ku soo barbaaray ee wax ku bartay dalka Kenya gaar ahaan magaalada la dhaho Nakuru my primary level secondary level and university level inta waxaan ku qaatay dalka magaalada Nakuru ee dalka Kenya marka haddana university-gayga ay dhamaanayso waxaana aad u jeclahay inaan arrimaha haweenka marar badan ka hadlo siiba gudniinka fircooniga ah iyo ali marriage anigoo secondary aan bilaabay haddana project u yahay waan wada rabaa waa hagaag aad ay u mahadsan tahay ayaan ku leeyahay Nasro in badan iyo in badanba su'aalaha ayaynu guda gali doonaa barnaamijka sida caadiga ah marka hore waxaan aan ku weydiinayaa inaad inooga warbixisa xilliga aad bilowday wacyigelinta noocan ما شاء الله بايو نصر وما هتصنتهاي قلنا فرعوني جينا كهذا وحن بلاوي أنا جوا secondary and that was to 2014 نلاحظ إلى 2013 مركان جلاي إلا يو مركان دمينا هي 2016 هي secondary دمي انتبه هذا يوم واحد لي سكول كمركان جوجي أو برنامج نوعاس إما هذا كلاس كلي يسوي بحين جري كعلى شقة هذا وياه كقيب قاعدة يلي دي جري هدي سكول كلا أنا أو like أنا head قالنا وانصوها waxaan represent garan jiray inaan qaybtaas aad uga hadlo oo haweenka marka secondary waan ku bilaabay markaan dhameeyay intaan jaamacadda galina waxaan helay opportunity fara badan iyo meelo qaar oon ka qayb gali karo marka secondary waan ku bilaabay waa hagaag aad iyo mahadsan tahay aan ka sii socono su'aashaasi adigu ahaan maadaama gabar da'yar aad tahay in adag tahay inta badan bulshada in maxaan ku yiraahdaa adigoo da'yar oo waliba gabar inaad wacyigelin noocaas ah sameeysa maxaa kuugu dhaliyay ayaan isdhihi karnaa inaad sameyso wacyigelinta gudniinka fircooniga iyo waliba guurka degdega ما شاء الله بايو qofka bilaadanka markuu horta wax raba inuu sameeyo personally waxay ku yimaadaa in wixii ku damqinayaan ama wixii aad dareemi kartid dhibaatada ay leedahay waxa igu dhaliyay inaan gudniinka fircooniga ka hadlana waxa ugu weyn waxa waayo gabar aan iskuul isla dhigan jirnay oo secondary isla ahayn haddana close cousin-kayga ahayd baa waxaan ku arkay ayadoo yar Soomaaliya inta lagu guday waagaas ayagaana hadda waliba advance way xoogaa sakiimo fiican iyo baalki sharp pointed yar ron bay isticmaalayaan awal waxaan maqli jiray qodaxa iyo wax la isticmaali jiray waagi hore marka gabar waxaan marxaati ka ahaa aad aan iskugu dhaweyn oo cousin-kayga ahayd oo qodaxada dadkii la yiri waa lagu soo guday kamid ahayd oo inta sakaraaday isbitaal inta la geeyay baxday bilooyin adiga xanuunsaneed markii periodku ku dhaco anagoo iskuulka isla joogna gabadhaas waxaan u malaynaysaa fall inay hayso marka waan daba galay waa weydiiyay maxaa waxaan say ku timid gudniinka fircooniga inuu yahan arkay anigaba waa gudanahay personally laakiin dhibaato kuma soo kulmin oo sidoo yahay oo hadda xanuun saas ah lama soo kulmin markii periodka laga soo tago marka waxaan dareemay inaan kuwa soo socdo bal aan wax ka qabto oo aan isdhaho alla ilaahay balkan halka lagu ekeeyo marka waxyaabo fara badan dhibaatooyin fara badan baan ka arkay gudniinka fircooniga gabdho fara badan oo ku sakaraaday baan arkay markaasna way damqasay waagaas baan bilaabay markii inaan bal si fiican u daba galo waxaan arkay meeshaan joogay oo hadii Nakuru inkastoo Soomaali aad ugu yar tahay iyo Kenya inay ku yar tahay laakiin meeshaan ka imid ay ku badan tahay waxaan gaaray si fiican wax barto xataa kooska aan qaatay waa social work and community development hadda waan dhameynaya kooskaas waxa uu doortay waxay inaan barnaamijkan iyo ansixiso because anigoo dhakhtar ah ama maaragtay wax kala ah maxay sir sayid kugu ma haboono social work qaado social work na waa all about the society so society-gaaga u dagaalam dadkaagii u laabo adinka waxay soo bartay baldhe si aad uga faahfaahisid bal wacyigelin aad ka siiso oo u sheegto wixii xun aad ka reebto ما شاء الله أبيه هويدنا أدبون جعلها وحي سميان each and every year ويدران وأنا مقالدي أنا كل شيء وحواي أنا جو secondary وفون فو وان تجي سنة كي قدام بيسي جامعة أنا سنة كست وان تجي جرا مركي ديسمبر لقى ديسمبر اللي حاجة أقصى قاعدين جرا si aad bulshadii aad ka imaadii Soomaalida u badan tahay wadankii aad u tagto u sheegto samar walba markaan tagana waligay kama soo laaban aniga inta iskugu yeero aan ka hadlin meelaha lagu gudo booqanin isbitaalaha tagin kama soo laabanin waa hagaag aad iyo mahadsan tahay Nasro aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya boqolkiiba boqol waxaad inooga sheegtaa waxyaabaha aad kala kulantay inta aad waday arintan adigu ahaan shakhsi marka aad bulshada u bandhigto maxaad kala kulmaysaa ما شاء الله بايو إن أرتوحوا البتشالنج ليهن وحن تشالنج لهن مجرو وحا كلا كل ما يوجينات إن يدك إلهان محاكر تقبلها لجزء ما فرها كقاد
maxaa gabdhaha uga hor istaagaysaa in la gudo waa dhaqankeeniya waxaa saas gudniinka ayaa kala duwan oo mid waxaa jira oo gabdhaha u wanaagsan sunna fircooniya samahan ayaga waxay leeyihiin sunnada waxa ka hadlayna waa mid fircooniga sax ayaga hadee badanaa hadda dadka isticmaalo ayagoo og inay sunno jiro ayay fircoon u gudaan because qof walba og laakiin marka weydiis waxay ku leeyihiin may anaga gabadheena inay noo asturnaataa rabnaa inay magaceeda noo wanaagsanaataa rabnaa fircooniga waa u gudanayna anigana researchkayga farada badan oo sameeyay waxaan marqaati ka ah oo arkay gabdho u gudan fircooni oo laakiin sidii laga rabay aan ku soo bixin oo meeshii kuwa sunnada loo guday laga yaabo inay ayagii maarta asturan yihiin oo siday ka baqayeen ayadoo fircooni ay hadana ku dhacayso marka challenge weyn waxay gabdhaha dhaafal loo guday adma xaq karta gabdhaha nooda ninaan wiil wuxuu yiri aan saaxiib ahayn gabar aan gudnayn anigu ma barayo fircooni haday gudnayn maray marka insha Allah dad wiilka ma ka fikiray dhibaatada ay kala kulmaysa gabadhaasi qaani waxaan ku iri wax ma ku sheegaa ma la gudayo gabadhaha hadda kuwa hore u gudan raadsan ku iri kuwa hadda soo kacayo lama gudayo insha Allah intaan walaay aniga wacyi gelinaya ayaa tiri oo ka hortaagan waa hagaag aad u baahsan tahay adigu ahaan yaa kula shaqeeyo arintaani misna ka caawiyo hawshan mahayad aad waxa jirto aad ku wargelisay oo ku caawiso weli ma jirtaan meelaha aad tagto maamulada aad tagto dawladda ma kala hadashaa والله باي معاني هدي هرت هدا أرضي جامعة سودة مهي هاي مركان سميني أنا أرضي سكندري وأنا ها و مارت سوسايتي بس فعلا ومدح جرين هات ذي وحنا من سنة قف كمركو وحقا من ربو إني أسقى كبلاوته أنا جالس كبلاوي عدني وأنا كده بلاوي هو ذي قبل هذي يوم وين أنا جيبا كده بلاوي سكول كيبا كبلاوي وحي أدسان إن يروذ مركي عن سكندري سودة مهي أون تجي سوماليا جارهن مقالة جدو waxaan damcayna dadkii isku yeero aniga aan personally magaca isa siiyo dhaho gudniinka fircooniga ka hadlaya xuquuqda womanka u doodaya hadda hay'ad oo closely aan la shaqeeyo ma jirto oo aan wax la qabto laakiin seminaaro badan oo looga hadlayo doorka haweenka oo aan ka qayb qaatay baa jiro oo aan role weyn ku yeeshay markaas ayada aniga ma baqay marka qaar hadii chance aan helo waxaan ka qayb qaatay UN shir ay lahayd 2017 December oo aad u weynaa xagee ka dhacay Nairobi ka dhacay geeri marka magaalooyinka dhan baa laga dalka dhan baa laga yimid outside iyo inside waxayna ahayd in looga hadlayay violence against women marka shirkaas asaga waa ka qayb qaatay in oo maasha Allah magac weyn leh baa igu daray oo yiri ka qayb qaada shirkaas anigu markaasna ku joogo shirkiiba ii ansixiyay inaan ama dareemay sida uga hadlayeen iyo wixii sameeyeen it was the first one aan ka qayb qaato marka kiiba igu qasbay inaan aan ku istiigarayo oo aan barnaamijkan sii wato because qof walba barnaamij uu watay project uu lahaa anigana kii aan jeclaan la imaaday gudniinka fircooniga ana ka hadlay su'aalo badan bay iga weydiiyeen maasha Allah dad badan oo aan ka bartay marka adi hadda hay'ad saas ma jirto laakiin waxa jeclaa inaan iska bilaabo mar ana ku meeting ku qabtay oo 52 gabdhood aan la kulmay video iyo sawirana aan ka haystana hooyaday ma lacagta ka qaado waxaan yiri hooyo waxaan rabaa inaan sameeyo hool ii kire soo dhooyini wax igad gabdhahaas ana u yeeranay gabdhihii baan u yeertay oo aan danahayga u dubtay anigu umba isfaan garay anigu umba dubtay anigana memory ahaan u haystay oo I wanted like in dareemo inaan wax kaligayga samaysan karo aan ku sii socon karo because maanta ba adigoo doorka weyn ku doodaysan kala kulma samaan soo ku soo dadaal aad samaysay lahaantii waliba daawadayaasha waxaan u sheegayaa inaad safar inoogu imaaday daqiiqada kooban halkaan aad nala joogto waliba aad noqonayso aad iyo aad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol nasro su'aasha xigto aan ku weydiinayo waxay tahay ilaa imase wadan ayaa tagtay ama maamul goboleed ama magaalo ilaa meeqay aad socdaalkaada ku soo koobtay والله سيدا هركو شيء مادام إن هيد يودي إجرين أو واحد فان جريني إجرين نفتيذنا أنا وسعودي مركا أيضا أنا هدي بروجكت وين أو إيه أنسي حسن أو أما إن هذا legalized أو هذا أما license كوتا أنا وذنين وحي هاي واحد foundation وأنا عن أبورتي وحاوايو dalkaygana kuru meeshiyaan wax ku bartay intaas aan joogay waan ka dhex sameeyay ilaa haddan waa ka sameeyay gabdhaha way yaqaanaan Nairobi waan imaaday markaan meetingkaas ka qayb qaadanayay iyo meeting kale asagana aanan ku sheegin laakiin entrepreneurship looga hadlayay asaga markaas asaga barnaamijkaas muu ahaan oo laakiin ku soo dhex daray markii aan dadkii isla fariisanay group discussion la sameeyay ku yiri aniga waxaan jeclahay inaan u doodo haweenka haddana gudniinka fircooniga aan aad uga soo horjeedaa asagana 8 bari soconay Nairobi dhexdeeda dad far badan ayaan tusiyay oo u daawacay oo videolkiisa waraantii aan tusiyay adig Kenya labadaas meel baan ka tagay Soomaaliyana
balaxa waan tagay oo dhowr jeer baan damcay inaan ka hadlo arrinkaas asaga ah inkastoo aanan chance weyn u helin sida aan Garbaharey meel la dhaho uga helay. Garbahareyna sanad walba waa ka sameeyay. Doolowna waan tagay. Muqdisho waa tagay laakiin waligay barnaamij ma soo bandhigin. Marka wadamo intaan tagaybo waa intaas waayo magaalooyin waad rajaynaysaa inaad Muqdisho tagto oo kalsoonidaada soo bandhigto oo ka hadasho arrintaasi laga yaabaa inay ku bad yihiin inay jiraan sax inaad ka hadasho waad jeceshahay hadduu Ilaahay kuu suurta geliyo inta aad magaalooyinkaas aad ku socotay ma jiraan waxa aad kala kulantay wixii kugu yaabka badnaa adigoo ahaan aad aragtay gabar ama gudniin fircooniga aad kala kulantay oo dhibaataysan caafimaad guud weysay gabar guurka degdega la kulantay oo halkaas ku dhibaataysan ma jiraan waxyaabahaas waa arkay way laazim waa arkay aad bay u badneed midii igu yaabka badneedna waxay ahayd this year 2019 January waxaan joogay gobolka magaalada Gado gaar ahaan Garbaharey waxaan raadinayay ama aan ku guda jiray inaan ogaado gudniinka fircooniga ah meesha uu ka dhaco iyo sida uu dhaco iyo waxyaabaha maartay gabdhaha ay dareemaan may ku rafaadaan sidii hore mise hadda si wax yar ka yar duwan ay u gudaan ما شاء الله برنامج أنا قبتنا وجرا ومركز هذا ضد اللي جوجين وكهليني وحن تجي مجال داس كمية مجال ما هو تولير أو مجال داس هوس إماده أو قبضة لجوجوده هل لبا ما جودالي وير لبا مشاس جودان لبا داس معموين معموين أكترين أو جنين كوحل سعران معهن بتوادت براكتيس جري أو يعني معرفتي جودان حرفدي وهوران أول سكول مجرين دتكو حسمين جرين قف يقانا وحي كبريو عندنا أديجن وحي بعد سمعينسها سو معموين ساس أو لبا على إيش هاي مجال هبل جوجا مجال مش طول قرح ولا ده ملاينها Garbaharey way ka yar fogtay wax yar marka gabdho toddoba ah baan isbitaal ku booqday oo la guday oo gudniinka fircooniga lagu la kacay gudniinkii lagu sameeyay xanuunsaday marka dhibka meesha waxay ka taaganta waxa waayo qaar baa inta la gudo bay caafimaadaan oo hadhowna sidii loo guday ku caafimaado qaarna way ku sakaraadaan ilaahay amarkay gudniinkan markii aad baranaysid ama aad fiirinaysid afar qayb oo guurka degdega ahna waxay ahayd 2017 mar aan booqday magaaladaas waxa iigu yaabka badneed hadii anaga marka inta joogno Nasray waa dareemi kartaa gabdhaha da'da yar lagu guursanayo laga ma yaqaan meeshaan waa dana ceeb waayo maadaama iskuul ay jiraan ay wax baranayaan ay aad mashquulsan yihiin xagga waxa waayo gabar yar oo hadii aniga markaan agstaagan isla leeyahay hooyad u noqon kartaa baa waxay igu tiri cunuga baa iga ooynayay abaayo ilaahay baan kugu dhaari cunug baad leedahay naaseed u dhashay يا مركب وحواي وحائر موالنتين أنا مركب جنيك في عرقان جعلها آلي مارجنا أنا قون يد إيجا جرتو إسلها آلي مارج ساس وما بدنا ميها كان بان قوان قارا واغاز 2017 ورمكا دبا كالا انت هجرتها 8 سنة هوغنا يبقى ننكو قبين توجرا وصدن إيسديد صدن إيساقال وادالي كرا لبا جر marka waxa waayo in la guursado ma xumo laakiin hadana tii gabadhii aad u yareed biologically marka hadda wax baranayno meel waxa jiro pelvic girdle la dhahay oo ilmaha galeenka iyo sideedaba inkastoo dad yar oo wax dhaleen la arkay laakiin kuma fiicna dhalmada hadda way dhibaysaa ma expand garoobiso waxyaabo saas biological effect uga iman kara ayaa jiro marka gabadhii baan ku yiri maxaa caqabado kala kulantay maxaa dhibo kala kulantay tii baa igu dhalisay inaan kuwa kala arko